munaasabad looga hadlayay madax banaanida saxaafadda Soomaaliya ayaa waxaa lagu qabtay gudaha magaalada Cape Town ee wadankaasi South Africa sida uu faafahinta warkan uu ku eegay wariyaheena Cabdifataax Cali Samatar Sablaale. haddii xuquuq qowlku ahaan lahaa dal madax bannaan dalkaasi wuxuu ahaan lahaa kan kaliya ay suncadceedu ka dhicin calankiisa wuxuu qoraalkan ka dul muuqdaa sawir owr rukuub ah oo isku xiriirsan xilli gabaldhaca kaasi wuxuu ahaa mid ka mid ah halku-dhegyada darbiyada ku xardhanaa madal boqolaal qofood ay isugu yimaadeen magaalada Cape Town waxa ay ahayd munaasabad loogu dabaaldegayay xafladii 5 sano guuradii ka soo wareegatay kolkii la aas-aasay ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika Sojaasa sidoo kale waxaa looga hadlay xuquuqul qowlka madax banaanida saxaafadda iyo tacadiyada loo geysto saxafiyiinta Soomaaliyeed meel walba ay joogaan filim ka hadlaya doorka warbaahinta ee bulshada dhexdeeda dhibaatada saxaafadda loo geysto gaar ahaan saxafiyiinta la dilay iyo weliba waxqabadka ururka Sojaasa ayaa lagu soo bilaabay xafladda kaasoo boqolaal qof oo kuraastii meesha tiilay ka tira badatay si weyn u soo jiitay farinta ugu weyn ee la gudbinayay ayaa ahayd in bulshada ay xushmeeyaan saxafiyiinta taasina ay horseedi karto in aanan la waxyeeleen saxafiyiinta marti sharaf aad u fara badan oo goobta ka hadashay ayaa dhammaantood ku dheeraaday doorka saxaafadda ee bulshada ugu jirto iyo sida saxaafaddu ay u tahay tiirdhexaadka ilbaxnimada bulsho kasta oo meel ku nool xafladda waxaa laga qaybiyey buug ka hadlaya waxqabadka iyo taariikhda ururka Sojaasa waxaa jirtay riwaayad si weyn loola dhacay oo ka hadlaysay waaqaca jira maanta waxaana si weyn riwaayadaas uga dhex muuqday Maama Xabiiba Talyaani oo ka mid ahaan jirtay hoballadii kooxdii Heegan ee booliiska qaranka Soomaaliyeed dadweynihii ka soo qayb galay xafladda ayaa ku tilmaamay in ay ahayd mid ka mid ah xafladihii ugu waaweynaa ee ka dhacay dalkani Koonfur Afrika inta ay xasuustaan intii xafladda ay socotay ayaa waxaa bilado iyo koob la guddoonsiiyey kooxdii ku guulaysatay koob loo dhigay 2 koox oo kubadda cagta ee lagu kala magacaabo Sojaasa Star iyo Banaadir FC ciyaarta waxa ay guusha raacday Sojaasa Star waxaana koobka guddoonsiiyey gudoomiye ku-xigeenka xiriirka kubadda koleyga Soomaaliyeed Maxamed Xaaji oo sidoo kale ka tirsan xiriirka Olombikada Soomaaliyeed Cabdifataax Cali Samatar Sablaale Somali Channel South Africa.